Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee aanu ka sameynay silsiladii caanka ahayd ee aadka u xigmada badnayd ee Soomaaliyeed ee magaceeda la oran jiray Siinley. Haddaba maanta waxaanu idiin soo gudbinaynaa heestii 20aad oo ka mid ah silsiladaas caanka ee Siinley. Heestaas magaceeda waxaa la yiraahdaa Samirsiis, waxaana tirinaya Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye. Haddaba saan horay inagu soo sheegnay ama aad la socoteen, silsiladan caanka ee Siinley waxaa jira hal abuuro isku xiran ayagoo ama silsilada dhexdeeda isku dhinac ah ama iska soo horjeeda oo midba midka kale weerarayo. Haddaba hal abuuradaas sida tooska iskugu weeraraya silsiladan ama ayagu isku xiran waxaa kow ka ah Cabdiqays iyo Hadraawi. Sidoo kale waxaa ka mid ah hal abuurada aadka iskaga soo horjeeda oo maansooyinkoodu isku xiran yihiin Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye iyo Siciid Saalax Axmed. Haddaba heestan Samirsiis ayaa Gaariye wuxuu si toos ah ugu weerarayaa abwaankii weynaa ee Siciid Saalax Axmed, oo ay labadoodu heesii horena isku weerarayeen oo iskugu soo jawaabayeen. Inta dambe ee isla heestan Samirsiis ayaa abwaanku wuxuu kula hadlayaa isagana uga jawaab celinayaa Cali Saleebaan Bidde oo la saftay Siciid Saalax. Haddaba hees Samirsiis waxay ku bilaabatay sida tan: ma ogtahay Siciidow, xalay baan saqdii dhexe cirka sare u eego, sida dirirku leeyahay bisha soon markay tahay. Sabuux lagama heesee, safar hayla boodine, sanadkii mar uunbaa xajka loo sadcaalaa. Haddii aad sabool tahay, sandulayni waa debed, afku seefla yeelkii sal u yeelo sheekada. ma ogtahay salaaduhu midba saacad weeyo, surmigiyo abaaraha weesadu sidaan qabo ku sax weeye ciidee. nin sahwiyey rukuucuhu kol labaad inuu sugo, waa sadar hubaan lehe kuu furan sujuudiye. ma ogtahay Siciidow, turubkiina maad sugin sibay raani leedahay, baashe saar kumaan odhan, kuma odhan rankii sayr, saddexlaha aad qaadiyo sideedluhuba waa biig. haddii ay ku sidataad sukihii magaysoo saameeshay yeekihii, saaxiib maxaa qaban. foorad baa ku saarane sal u yeelo sheekada. ma ogtahay Siciidow, sagalkiyo arooryada warka loo sarbeebiyo, subaxdiiyo habeenkaa saaka loo garqaado, inay suurtii dhowdahay sagaa baqal la dhaafsho, siiga dhiig tifleeyo. sarka dhaman ku laranyaa saanad soo walwaasho, siraadkii cadceediyo caad saartay nuurko, waxay saxar la leedahay. xidig suran korkaygiyo ifaan sii ridnayno, igu sabaya been iyo saco dhowra mooyee, layga saab ilaysko. safan baan tallaabada hadba suul u dhigayaa, Siciidow xogtaa dhuux, sanka burada ha u jarin, hadal kuma soloyside. waan sidaaye hoosii, surbiyaanka ha u miyin, jaalle mayla socotaa, sal u yeelo sheekada. googaa Siciidow, sadkaagaan ku duulo, dadka kale ka sooro, sako aan ka bixiyiyo sadqo ii xalaal tahay. tu kaleeta suuree ida laysku sooco, safsaf loo tubaayo, suma lagu ilaawo lagu sii dhexdaayee. saadaashu waa maxay? tu kaleeto suuree, saaqadan warkeedii kuu sifeeyey waa hore, sadkii waa ka dhowyo, sulub wuu la faystayo, walqashiisa saawiri, saaka dhaafi maysee, warankeeni sooyaan samaydiisi laalnayd. halka ay ku sugan tahay Siciid ma war haysaa? tu kaleeto suuree, sirtu ereygii jiifto ah, saryan ii higaadsho. xarafyada sameeyaa saca farihii weeyaan, shibbanuhu ma soorana, subci shaqaladiisoo saddex baa mid laga jaray. ka gungaar su'aasho
sagandaha ku raacdee sidig oo hanaafayn jaala mayla socotaa sal u yeelo sheekada. Sule ciidankan diray sahaydii kamay go'in soonah iyo dhilowyaha ninka maanta soohow geed saraadkii muu maran. Sidii baa galoolkii mayrax looga saaraa waxay suuban leedahay halkaan saaka joogaa suryo oodan weeyo silic lagu mutaayo maaha saba ayaan lehe awrku saawaha yaanu goosan seetada xarigiyo sitaacana aka saamin jeerine isa suranta weydii ka salgaar xaqiiqada sal u yeelo sheekada. Xarig lama sitaanow sibiq ceelka hawgelin 30 baac waxbaa dheer salax weeye oogadu waa sursuur hareeruhu dhexdu waa habeen socod hoostuna sud weeyaan sayma lagu wareejo ka sokeeyo oomane laba suule waa muruq waa harag sagaaree ha ku seexin laba ruux soo horaydu yeedhaye u samee wadaano sida xuubka caarada sidaheedu yuu go'in sal u yeelo sheekada. Aliyow sargooyada waan kugu saluugo samadoon habkeedii tani uma salaaxno safar meel fog kaa jira sahal looma naco oo lama siro ninkaa maqan samsam iyo bulaalow caydiyo salaantii igu soo sinaadee warka aan ku siiyee jaalle saaxiibaan ahay ha iska kaysaloolane horta saani ii baro sida taashi kuu timid kuma cabanin saaxiib dhego siiga awdaan u tumaayey saaroo naf 9 shub mooyee weedh saran aqoon baan u saafayey sheekada hadal lama surnaado cabdiqaaday seeftii hadda waa safkaan ahay ninkay seegtayow maqal saylac xal ha loo diro waxay saxar la leedahay maysamadu heestoo buuruhu siqaanoo subulaha galbeed iyo saraar laga dhawaaqo sanqaraan cirjiiruhu may waranka sooyaan samaydiisu baantoo sabeenuhu hadlaanoo suuban laga wardoonoo ninka samaha raadshiyo si xun wax u tilmaamaha salaan loogu yeero la yiraahdo kala saar waxay seeb ku leedahay sirtayaan la faalayn hala sugo jawaabaha waa saharla sheekadu. Haddaba inta haynoo joogto heestii 20aad ee silsiladii caanka ahayd ee Siinley annagoo ku sii saqayna ama sii galayna qaybihii ugu dambeeyey ama gabagabadii silsiladda. Haddaba heestaas oo magaceeda la oran jiray Samirsiis noona u tirinaya Abwaan Gaariye ayaa wuxuu ku weerarayay Siciid Saalax uguna jawaab celinayay. Wuxuu sidoo kale qaybta u dambaysa kula hadlay Cali Saleebaan Bidde oo la saftay Siciid Saalax.